waxa ay biyuhu eegaagaan wadooyinka suuqa xerada waxaana adag isu socodka dadka iyo gaadiidka ee suuqa dhexdiisa iyo xaafadaha waxa kale oo laga cabsi qabaa inay biyaha fadhiya wadooyinka ay saameyn ku yeeshaan caafimaadka dadka ku nool xerada Xagardheer sida ay warbaahinta u sheegeen ganacsatada suuqu ganacsatada ayaa dawladda ismaamulka Gaarisa iyo hay'adda UNHCR ba ugu baaqay in wax laga qabto wadooyinka ay biyuhu buux dhaafiyeen ee dhex mara suuqa xerada aniga magacayga waxa la Muuse Cabdi Axmed waxaan ku noolahay kaamkan Xagardheer waxa ilaahay raxmadan uu keenay un baa dadku mar walba cabasho way iska jirtaa ay hadda ka cabanaya wasaqdi iyo biyaha dhex jiifaba dadku ka cabanaya waxay ka cabanayaan bal hilibka iyo biyaha inta isu jiraan waa wixii la cunayo waa daruuri ahaan caanaha la mid waay waad aragtaa sidadkan wasaqdaas fadhiisata markasto oo robdo hay'aduna waxba kama qabato kaamka gacanta ku haysa dawladda Kenya oo cashuur nagaga qaadata warqadaha oo sanad walba goysaana waxba kama qabato may garatay labadaasi midna kama warhaya marka dawladda Kenya waxaanu leenahay cashuur bay qaadataa bal horta weynay ogaataa oo kaamka la socotaa oo cashuurtii dalka ay ka qaadatay weynay dadka wax ugu celisaa taa dawladda Kenya aanu soo jeedinayna tan kale UN baan u soo jeedinaynaa UN iyada ayaa xarunta gacanta ku haysa xeradan iyada gacanta ku haysa iyada budget ku soo qaata iyada dadkan gacanta ku haysa iyada quudinta ka shaqale iyada caafimaadka ku shaqale iyaduna dib uma fiiriso magacayga waxa la dhahaa Cali Cabdullaahi Xasan waxaan ahay ganacsatada ku nool qaxootiga Xagardheer gaar ahaan waxaan biibita ayaa meeshan ku haysta horteeda kawaana ayaa ka furan biyo ayaan buuxo xaafadii gadaal meel ay ismala ciyaalkii iyo wixii meesha isku rafaadeen waxaan ka codsanahay hay'adda UNHCR dawladda Kenya maadaama ganacsatada oo cashuurta nalaga qaado waxaan ka codsanaynaa in nalaga qabto biyaha meesha ku rafaaday oo ku uray si aan cudur uga qaadan hada cudur inuu ka dhaco daacuna ka dhici kara hada cunugiro shal meeshan biyahan dhaxmar uu ku caarooday xal farmisha laga daaweynay oo daawa la marinay marka waxyaalo badan baa ka dhalanaya biyahan waxaan rabnaa in laga soo gaaro sida ugu dhaqsiya badan magacaygu waxa la Maxamed Aadan Qaliif waxaan ku noolahay xarada qaxootiga Xagardheer waxaana ka codsanaynaa dhulka dhibka neesto biyahan iyo wadooyinka hilibka iskor saaran ayaa aad iyo wasaq baan haysato wasaqaas aydan ka qaylinayna hilibaan gadnaa waxaan ka mahay ganacsatada hilibka gadato waxa maanta aad caqabad nagu ah hilibka iyo biyihi wasaqda iskor saaran gaariyaha naga leexanayaan dhag bay nagu dhufanayaan waxaan rabnaa wadada maanta in laga hagaajiyo dawladda countiga in naga hagaajiso maadaama sanadkooda u dambeeyay laga qaado canshuurta naga harunay ganacsatada ayaa siyaabo kala duwan uga jawaabay su'aal uu weydiiyay Jubaland TV oo ahayd sababta ay ka ganacsata ahaan xil isaga saari waayeen wax ka qabadka wadooyinka waxaana ay qaarkood qireen inay jirto isku duubni la'aan ka dhex jirta ganacsatada xerada Xagardheer waxaas muwaafaqo xumaa ka dhacday tii dawladda UNHCR haysatay baa anagana haysataa UNHCR ayada meesha na keentay ayadana waxuna ma qabata anaga wax soo qaban la markay anaga wax isma qaban karnaa annagu hadaanu nahay bulshada dadaal dheer baanu sameeynay jidka aad arkaysid qaar badan baan dhisnay hadda halka waa lagu shubay waa la dhisay hadana wixii isma dabooli karaan oo ma dabooli karaan kareeto lagu shubo ama gaari ciido lagu shubo waxay u baahan tahay cagaf la geliyo kaliya dhaqaale xumo aad iyo aad nagu baasanaya nagu habsatay waxaan rabnaa wadooyinka in dawladda countiga noo hagaajiso maadaama countiga lacagta naga qaadayada wali hay'ad wadanka hay'ad kama jirto hay'adii aad bay dhaqaalada xumaaday hay'adii aad buu dhaqaalaha u dhacay waxaan rabnaa dawladda canshuurta naga qaas inay noo hagaajiso Axmed Cabdullaahi Jaamac